sababta aan u hadlay waxaad familkayga markay support waayeen noloshayda hadda waxay support bay aniga iga rabaan anay leeyihiin supportoo waa nala dhibaataynaya ogaada taas I don't care ana shaqadeeda maaha markaan kuu baahnaayo support weeda ana hadda adaa yaqaano Soomaalida saa ula dhiirigaraysid haddaa Soomaaliya kasoo cararaysid iyo haddaa Yurub ka cararaysid iyo haddaa Maraykan ka cararaysid amba waa soo cararay keli baan soo cararay keli baan survivor ku jiray keli baan silcaayay idinku dad badan baaba tihiin waad iscaawin kartaa qabiilkiinna waad haysataan so go hell waxaa rabtaa sameeya saa rabtaan isku badbaadiya hawsha idinka idin taalaa aniga messagekaygu waa kaa sideen idinku aaminayaa su-aasha meesha taala waxay tahay sideen idinku aaminayaa maanta aad saboorkayga ku heli doontaan sidee ku aaminaa taas wax macquula maaha idma aaminayo xitaa even waxay igu sameeyeen asxaabta kale iyo bili-aadanka kale aan la kulmo siday hoos iigu dhigeen ii bahdileen dadka kalea dhibt igu adagta inaan qof kale aamino oo bili-aadana ayaa igu adag tahay waayo dhibtay soo gaadhsiiyeen awgeed dadka kale xitaa ma aamino dadka waxaan dhaha okay qofkan hadduu ima berina wuu iska tegayaa markaa sidii familkayga dadkii adduunka i jeclaaba wuu iska tegeen so ya dadka maam taasna sababtaasna iyagaa igu sameeyey idinkaa igu sameeyey familkayga igu sameeyey so taasna ogaada qofka marka familkiisu xidho ee uu fogeeyo maxaa ku dhacaa had iyo jeer kelinimaa ku dhacda waa inagu waxaan baranay guryahan ku kornay dad fara badan baa ku dhex kornay waxaan soo baranay dadkeen waa social weeyaan qof 10 walaalaabaad leedahay 15 walaalaabaad leedahay Soomaaliya adeeraad leedahay abtiyaal baad leedahay eedooyin baad leedahay tol baad leedahay maxay baad leedahay waxaasoo dhan aad ku dhex kortay waa maaragtay wax isku xidhan weeyaan markaa waa social network-aad haysat waa ku xidhan tahay marka keli lagu saaro cidla lagu xidho ta ugu horeysa kugu dhacaysaa waxay tahay waa kelinimo mar walba waxaad dareemaysaa kelinimo aada cidla badan baad dareemaysaa marka hadda dadkeena LGBT-ga dhibta ugu weyn in haysato waxa weeye in kelinimaan dareemaynaa sababtaan u leenahay mar walba aan samaysano group LGBT-ya oo aan family cusub samaysano familiadeena meesha way ka baxeen taas weeyaan we are family sababtaan mar walba u leenahay taas weeyaan ogaada haddii aynan helin cid ina supporta oo isku keen xidha oo isku keen wada oo gacantayna qabata waxa dhici doonta inuu qof walba inaga midaba cidla ku dhinto waxa dhici doonta qof walba inaga mida inuu depression ku dhaco waxa dhici doonta inaan degdeg u dhimano inaan life dheer noolaan inay nolosheena nolol kooban noqoto waayo bili-aadanka wax ka xun ma jiraan qofka kelinimada ogaada taas kelinimo ka carar meel kastoo joogtid kelinimo ka carar taas weeyaan experience anoo aan leeyahan ka hadlayaa marka waxaan u baahanay family inaga ina supporta oo inagu aan samaysanaa u baahanahay muhiim maaha qofkaad la dhalatay muhiim maaha inay aabiyo hooyo isku mid dhaleen horena taas waa uga hadlay ma dooran inaanu familkayga ma dooran nimankan soo dhalanayay aabbahay hooyada isu taga ma dhihin aniga soo dhala ma dhihin ma dooran familkayga laakiin hadda waxaan samayn karaa inaan family anu aan khaasa doorto inkastoo adag tahay waayo marka familkaagu damage ku soo gaadhsiiyaan intaa leeg way adagtay qof kula bili-aadana inaa aamintid laakiin waa inaad processka xoog u shaqaysid si aad qof kale u aamintaad jaanisyo badan u qaadatid siday lifekaaga wax iskaga bedelaan haddii kale maskax xanuun baa kugu dhici doona depression baa kugu dhici doona siday doonayaan baad noqon doontaa sidee lagula hadlayaa marka qof LGBT ee familkaagu sidee kula hadlayaan waxay ku barayaan inaad qof nacasa tahay waxay ku barayaan inaad qof caqli lahayn tahay waxay ku barayaan inaad wax xun tahay waxay ku barayaan inaad adduunka waxba ku haysan aakhirana cadaabta galaysa xasuusataa marka familkaaga lagama yaabo familo fiican way jiraan oo raba inay dadkooda fiicnaadaan oo wax noqdaan laakiin Soomaalida dadkeena way ku yaryihiin family ku taageeraya maalinta noloshu ku adag tahay maalinta noloshu ku adag tahay way ka wada tagayaan dhinac bay isku wada raacayaan dad madax banaan ma aho fikrad leh oo qofku intuu fikradiisa qaato dhaho war qofkan bili-aadanka maxaad u dhibaysaa dadkeenu sidaas ma aha dadka qofku wuxuu ku oranayaa anigu ku sabooraya laakiin
hay sheegin kor hay soo qaadin anu dhib ma rabo dadkeenu faig saasay u yihiin dadkeenu saasay u xun yihiin waa sababtan horumar u gaari weynay waa sababtan horumar hore ugu socon weynay waa waxa bulshadeenna lugaha ka xidhay qofku inaanu fikradiisa dhiiban karin oo odhan karin wuxuu ka fikerayo amba waxan waa cadaalad darro iyo waxan waa cadaalad iminka tiktokaaban ku arkayaa dhowr qof oo soo baxbaxay oo isku dayaya inay magaranaysaa ka hadlaan waxyaaba soomaalidu weligood ka hadlin iyaga laftigoodana kuwaasna waa la tuuray ogow sideedoo kale waa la tuuray mar hore waayo systemku sidaasuu shaqeeya waa moraal booliiska saasuu shaqeeya ta kalee labaad ee faniga familkayga 20 sannadood maalinta wax yeeri dhacaanba maalinta sheeko yaro anigii soo korodhaba telefoonaa la soo qabsanaya waxaasaad samaysay waxaad mooddaa inay waxu dhiman yihiin ayaad mooddaa waxa iyagu igu sameeyeen cidima ogo cid ka hadlaysa ma laha dhibta iyaga haysatun bay ka hadlayaan dadkeenu fikradaasay haystaa qofku dhibta isaga haysatuu ka hadlaya dhibtaada laguma weydiinayo dhibtaada lama dhegaysanayo cid dhibtaada keergaraynaysaa ma jirto cid ku rabtaa ma jirto takale labaad qofku xunay ani waxaasay haysta dhibtaasay haysta sidaasay haysta problemkaasay haysta what the fuck problemkayga maxaa u eegi weysay problemkayga maxaa u eegi weysay 20 sannadood baad igu samaynaysay tattoo ood i dhibaysay ood i maagaysay ood i caayaysay ood i bahdilaysay wax xun walba igu samaysay wax walba i isticmaashay ad even xitaa dhaxalkii aabbahay hooyada iga qaadatay oo haddana leedahay dhib baana haysata soomaali dhibta kugu haysa ma inaad dan kale ayaa u malaysa mana saa qalbi jilicsanaha u malaysa ani maalinta dhibtu i haysatay who care nobody care wata soomaalidu nobody cares so adigu problemkaaga la dhiilgaree annakaygaan la dhiilgaraynaya family badan baa tihiin dad fara badan baa tihiin idinku waad haysastaan waa isku xidhan tihiin waa isku duuban tihiin idinku is haysta anna family ani igaaran samaystay so waa fahmaysaa jawaabta so telefoonada iga daayo blog baan wada saaraya shalay wixii telefoon lay soo diro dhan blog baan saaray kuwiina dambe ona isku sheegay halkan ku jira eegayo hadda adiguna hadday soo wacid blog baan ku saaraya so bye bye anaa is doortay anaa xorriyaddeeda doortay anaa madax bannaanideeda doortay